قالوا وقتوا سوء أذيتي صح أذيك إنك واقعنا ونودية أيه سمع قرن هذا وأنا شيء ما دي أدنى أيه سمع قرن صح هذا أنا كهذا أنت ما بجاري كرشي ما ديو وحنوسنا يا هالكا دورك إلا سنت هالكا هوسو وحنو مالين تفين يا هاي ستف هذه دراعس كمان وجينا محاجر ما حنون كقرم كودا عن هذا نيو حنون كو نسوب وده سوموجت أيه حنون كو كقرر رام كودا مايا نسوب وده مركو أنا مجال أمرنا صح ودو الله إدم عن دكتور إيه وحلا كلنا صح هذه ماشي نكون لين هذه ما وجرته دكتور قاب عافمات كودا ما جرتو magaaladana hadii dhaahno hada umadowne dadkan waxa naga horeeyaan oo sijeedi aad garanaysaa marka tarjuwaani waxa u baahanayna no taasna waa loo baahan yahay waa runta koodi sax laakiin dhakhtar la'aan ma bixi kari waa inaan maxal dhijir horta dhakhtar meel laga helo sax aan tagno meeshan kulay dad luqadanada fahmayo ma ka weynayno hadaan raadino sax ciyaalka aqristay sax aqoonta leh meelaha joogo yaan ma artaa u tagaynaa on ka صح وحنا شيء عن لنا وحنا تجمع marka hadee waa diyaar inkastoo ay kula soo diristaarinta harakada waxa walba ka fiican caafimaadka meeshan wali ma gaarin ma insha Allah waan gaarin horta dhakhtarka aan inoo dhiman yihiin koode bal waan gaarin insha Allah lacagtii laxdan ka gadna ma haysaa waan haya waan haya hayo waa ku soo daaweynaya dad ma weynayno insha Allah waxaan weydiinamayo waxaan rabaa isbitaal aan u baahanahay adiga ana isbitaal u baahan waxaan rabaa afka cawiidka inaan waxaan dhakhtarka kula dhihi lahaa ay ugu sheegtaan waayo halka araxda ah iyo miskaha ah yaa isku kay dagaalo wax labadooda is dagaashanba is diidan no araxda iyo miskaha yaa is dagaashan dhakhtarka maxaan ku dhahaa araxda inta araxda waa taas miskahana waa ka labadoodii way is diideen hadaan dhaqaaqo qac boda kwani body ya binadamu siku hizi zinakuwa na internal affairs bro waratani kana yuko na ya tamenya halaas way ugu badan tahay wax yar oo adi labada araxda iyo miskaha is dagaashan oo is diidan kaliya bis aan rabaa miya dhakhtar loo sheegi
Mimi ndo Inta nashindwa. besa Utaambia je daktari bodi yako figo na mgongo zinapigana. hiyo siku hata kor u qaad aan fahme Ya. kor u qaad aan fahme Fancy. Maxooga hiyo siku na hata siku wanapiganaga. Mimi niko halala actually. intee kale halkaa maba kartaan ba iska daaya maya haye intee kale dan bal wax kale sheeg bismillaah niyow sambabadaas ayagana horta anigu maba yaalaanba laga dar iguma yaalaan ma aqaan cid iskale iguma yaalaan uurka halkaa maartay bartaas maartay ayagana sidoo qoon baa ku dhex noolba Kwani bodi ya binadamu siku hizi inakuwaga aje? Huyu jamaa hana figo yake sijui nini zinapigana. Ni nini kwanza? Hii ni brand new bro. hadda ii gagaabi wax yaran ka fahma bas bini aadam he bal meel kale sheeg wala intee kale laga haya inta ii daran waa intaas uurka halkaa qoomka ku dhex nool mooyaane iyo miskaha iyo araxda oo ayagana sidoo kaleeto hay kana waxay ugu dhama hiyo siku watu walikuwa wanasoma hiyo kitu walikuwa shule Mimi siko na mengi lakini nasikia tumbo yake amesema tumbo yake iko zinapigana huko ndani ni kama Vietnam wamefungua camp. tahlili wax xawtu famaysa dhakhtarku waxa arkaa in daawo wax ka weysa taxliil weligeen baan ku nooleen oo diinkaas aan ku dhaqnayna ya baadiyaha laga mooyin taxliil meeshan waxa u imaaday waa dhakhtar taxliil ma weydiiyay wax laga helay sheegay sabla maxaa inta laga hayo ma ku sheegay inta laga su'aalo badnaanayo maxay igu celcelin war miskaha iyo araxda hubba isku haystaan baan ku dhahay waa dagaal kii Dhaxda Ethiopia na Somalia ndio yapigana kwa mwili au msee. ngoja nimefahamu waa halka uurka ah isna maartay sidoo kale to waxa ku dhex nool qoom uurkan ku sheegay ay dhakhtarku markaa u tagto waxaad leedahay Vitumbua. tumbo yangu Tumbo yangu Si tumbo yangu. vitumbua. yani tumbo yangu Vitumbo yangu. kuna unajua kuna kitu rahisi Najua na ndo najaribu mpeleke. hiyo ni kala zaidi tunazungumzia waxaad leedahay caloosha waxaad leedahay markaa u tagto dhakhtarka tumbo yangu qabsa ya intaan ku sheego tumbo yangu iga daba dheh hingeedi Tumbo yangu. tungo yangu Tumbo yangu. tumbo Iko na tumbo vita. haya tumbo Taumba. kuna vita ndani kuna jeshi inapigana ndani kuna jeshi Kuna jeshi tumbo yangu kuna jeshi anapigana ndani bahali yake. anapigana ndani bahalkis Bahali yake. bahali yake ndani ta waqa watan fili Ndio hiyo. mid kale sheeg diyaar waa tumbo yangu kuna jeshi miskaha Anapigana ndani. Bahali yake. diyaar waa ta dawada ugu sin hay inta kala lagay miskaha iyo araxda miskaha iyo araxda ayaga isdilayaan dagaalka dhaxeeya halka markaan dhaqaaq maago bartaas ma arkay iyo tan markaan dhaqaaq maago Akamwambia nini unajua? Mfupa zangu mbili zimeamua kukosana. Wa mguu na wa mgongo wameachana. Walikuwa nadhani they are married now they are divorced. So short form mwambie wamedivorciana kwa Kiswahili. so Mfupa zake mbili zimeachana spinal cord na ile nyingine wamepatiana amani. so divorce Wamefanya they are divorced actually sahi. hay waxaad leedahay dhakhtarka u tagi waxaad leedahay mifupa yangu mbili zimedivorciana macnaha way isku soo qacda kiri Soomaaliya ha sax way midama helna maxaa Mfupa zangu mbili zimedivorciana. mbili zimedivorciana sima daafosiyana ha iyo waa dili dawa inta kale afra niyo waan kar la ahaye kuwan waxba aayad ma hayaan ya maxaa tale waan ka yaabanay nimankaana waxay sheegayaan waan kar la ahaye bal meel kale aan sheegi bal ayada warniyo mid kale jirto oo laga hayo habeenkii gabalka markuu dhaco oo aan jiif tago hoygayga aan galo oon jiif tago halkaas inta ka sareysaba ya anigu ma taalo malihan ma aqaano qofka iska leh malihan indhihi meel ay ku dhaceen ba kala garo maxaa dhii madaxa the head is not mine the eyes have get out of their socket they have run away naqaska markaan qaado maaga halkaasaan ka qaadanaya sankii dhinaca inuu maraad moodaaba maxaa dhii normally I have stopped breathing from my nose now I'm breathing through my neck waxaad leedahay inta ma kugu dheerato wuxuu anina BBC dan dhageysanahay hadda bis waxaad leedahay waan ku soo gaabiyo hiisoo yangu inta ka bilaab gacantaas indii hiisoo yangu gacma intaad geysin hiisoo yangu madaxiiga walaal tag camal ha macnaha ma bijooga aad mali soo madhi hiisoo yangu ha gacma wad raacin hiisoo yangu walaal inta ku taag indhahan kor u taag ha hiisoo yangu
hadda halkaas ay marayaan ku dhaaf كبدي واحد واسود راعين waa is wada raacaan لغة Simple. السواحلي واحد ولا سكوت حتى وسجسترات. kuna swim waan gartay war midda kale too jirta waxa waaye dhig laab jaxm ku dhaca umsele kitu amebeba bro mimi yata mimi hiyo ni gani tena hebu rudia tena confirm maana هذا dhig laab jaxm ku dhaca dhakhtar ninka markasta dhakhtarta diris leeyahay mise ii sheega waxaan ku dhihi lahaa dhakhtarka aan ku weydiin lahaa dhig inuu laab jax ku dhaco الله بجحة masikio yake siku hizi imeanza kupata heartburn أنا بسوي دواء كوزين لا صح كم دعان ولا ambul ndo dawa yake bro anaguba nahayaay anagu dhigtir laab jaxm jamaa kuna shida ya ambul bro mwingine anakuuliza ukimweleza daktari atakuja kukutafuta Najua. urudishwe shule najua So hiyo lakini kitu- sasa unajua hiyo hata kama tuna sitaki nirudishwe shule maxaan ku dhahaa mid ay dhakhtarka inaan weydiistaan rawaayo horta magaalo markii la imaa caafimaad Soomaaliga barto wax ma la ogaado dhakhtarka ya runta inta maxaan ku dhahaa dhakhtarka waxaan ku dhihi lahaa bas ii sheega dhig laabjeex ma ku dhacaa miyaa asaga dhahayna marka ha inaan ha dhig inuu laab jax ku dhaco laab jax wixii aan kala kasi waayo mzee akona point yake mingi tumemdanganya ile tunaweza mwekea bro sasa iwe jaribu kwenye utamdanganya mimi nimechukua half 90% nimedanganya mzee hii 10% imebaki ya mwisho baadhi ya battery maka dhamaad miyaas unajua hakuna mtu anataka kukosa kwenda mbinguni hakuna naona mzee idiga aan ila hadla bal waxaad leedahay dhakhtarka dugtay wax ii sheega inigu baa isku jeestay maxaa isku sheegaysiin ninkan dhakhtarka aqaan ma hospitaalka ninkan aqaan dhakhtarka markaa u tagtay dhig laabjeex ma ku dhaca miyaa tiri siju waa gees kenya ta gees dhig laabjeex macnaha ma ku dhaca miyaa ha dhig laab jax ma ku dhacaa aniga niyo dhigtaan halka salkeeda ilaa iyo dhakadeeda ambia mzee bro masikio inatoa jiko bro atujui kitu kingine ambia daktari masikio yake siku hizi imeanza kulia inalia usaa waxaad leedahay markaa meesha tag daktari asaga u tagtay mogta masikio daktari masikio yangu analia usaa ilaahay ka cabsan batia mzee uongo yake aende zake bro sisi si madaktari bro kwani anakuja kutuchukulia si medical advice waxa kwanza maqan kari soo gaabi wara wewe patia mzee advice ayadoo gaaban oo koombo ku jirta ii sheeg dhakhtar ku tag waxaad dhahdaa daktari nikate masikio yote mbili nikate masikio yote mbili macnaha damash waa labada dhigood soo lagama hayo may hal dhig waa hal mid un baa laab jaxan ka dareemay mid doo sama daktari nikate hii sikio nikate ya macnaha waxa way iga daaween ha he diyaar saxiix nikate hii sikio runtu nikate sheeg hii sikio ha hada dhakhtarka intaasaan ku dhaha inta soo marka daawo soo qaado daktari nikate iyo sikio alafu waka kii ugu dambayso maxaa dhihi daktari dawa adarke sida dawa dukugen maxaa dhihi asuala ku dhihi daktari sikiliza dawa si ya mama yako ku dhame taa waxa way ibeer macnaha ibeer waa macnaha Ibeer. ay daktari dawa si mamako macnaha uu ku dhanan kan daktar ku dhiso kuma dhiso ibaar ma laga macnaha oo dhan ibeer macnaha jiif marka x-ray hal isaara waa dawa si ya mama yako x-ray hal isaara extrigana maxaa la saaray macnaha adoo dhan lagu biiman lafaha mid loo kala dhigi tintaadana ayaa wax cudur ku jira loo wartimaha iyo waxaas dhan maxaa ani dhan maxaa ani meelaha ka xanuunsan bas idin Ma, waxaas oo dhan aan kuu sheegin. dhigta araxda misigtaas intaas le waxaan ka xanuunsanaa ani dhan maho ani dhan maho wax la saarana ma qaadi bas karo waxa oo dhan aan kuu sheegnay inta un qaado Inta un qaado. ay fiir egidan waan ku sheegnay dhakhtarka markaa u tagtay wuu ku daweyn daawo ku siinay dadka saa loogama tegi kara moogtay marka mahad celin baa loo baahan yahay dhakhtarka mahad celin waxaad ku dhimaaqeen soo lacagan siin soo maho may lacagta mahad celin kaloo afka macna si hadda ilaahay khayr ku sii camal oo kale duco duca ducada ugu duceen ma aqanta marka ka soo qaysade daktari nyanyako macnaha waxa weeye hadduu ku yeera Jannada mahali leh anauza kawa. viazi sokoni nyanyako macnaha janna firdaws alla ku geey anauza viazi sokoni tuna anauza viazi sokoni anauza viazi sokoni kuni mama soko gacmahana maxaa saan loo leeyahay macnaha dadkan Soomaaliga qana waxa isku way isku fahmaan. yaa ku tusaysa war ninkan ha ninkan halka badan washay dhay gelin haddii ya wax ma fahamto aniga ha waxaan fahmay markii lagu daaweeyo ha nyanyako saasman anauza viazi sokoni waxaan la soo dhaafinayo kan hadalka badan raadiyaha maxaa daawo waa insaacadayna maya waan saacideynaa gowdi hayu kaadi ba kan arnakan kan haumsa kwa shida na mimi ama nini wala
Nyanyako. Yawd anaga. Nyanyako. Macna anaga waan ku soo celinayna. War anaga doolan ma celiyo. Nyanyako anauza sokoni viazi. Anauza sokoni viazi. Unajua watu wataenda kwa hospitali na waseme tumeambiwa hivyo. Si ndio mzuri. Toka hapo kwanza enda. Mimi naenda zangu saa karibu bro. Lakini si venye leo umetufanya. Unajua lakini ulikuwa unajifanya unadanganya, lakini nilikuwa nakuona. Sasa tulikuwa unadanganya. Ni hivyo tu ndio hata wewe ulikuwa unadhani. Mimi actually hata venye nilikuwa wewe ulikuwa unapoteza msemi, nilikuwa najaribu kumuingiza kwa shimo vizuri. Wewe umempoteza nje, mimi nimemuingiza kwa shimo. Nani ameshinda? Mimi at least nilikuwa na joke, lakini wewe yani ilikuwa hivyo tu ndio hata wewe ulikuwa unadhani, si ndio? Actually si hivyo. Kwa nini unadhani how stupid am I? Nilikwambia maliza mpaka form 4 ukaachia form 1. Sasa hakuna shida. Unajua actually mimi mwenyewe ndio nilimaliza mpaka form 4 ndio hata nashinda kujua utajua nini. Sasa wewe unaanza unaleta ni kama asifu kwa nini uko na karia. Karibu nisome mpaka form 5. Hakuna shida hata ukifika form 8 na form 9. Sijali mimi, tuko na wewe wapi? Tumekaa na wewe hapa kwa baranda bro. Tunafanya nini? Tunachunga barabara yetu hapa. So why good until? Hakuna bro, tuko on the same level. Kwa mjanja bwana na waache kuongea bullshit. Mimi nimepoteza wewe umempoteza, mimi nimeingiza kwa shimo. Nipatie self respect bwana. Self respect. Wewe kwanza mimi ningekupiga bei wewe. Kwanza mtu kama wewe mimi naweza kukuuza. Umeona venye hasa nimewauza mpaka wametoka kwa. Hapa ni kweli juu hapa hata ninaangamia ba. Sasa huko niuza naenda tu hivyo. Huyo mwingine aniuze anipeleke mahali naenda. Bora tu nitoke hapo. Unaona venye hapo tunaungua. Ajifanya ng'ombe sijui utakamuliwa na nani. Fanya hivi. Au watu wanajua wataenda kwa hospitali. Usiwache waende. Waende kwa daktari. Waambie daktari sasa nyanyako. Daktari atasema kuja mnionyeshe wenyewe wa long story short. Kuja hapa watuambie sana hao ndio tuonyeshe hapo. Tutafanya nini? Sisi tumeshapoteza tutoe mali sasa, si ndio? Kwa nini unangoja nani hapa? Sio jua akija wale tutakuja kufungwa sisi. Wewe tunajitoa. Wewe utarudishwa mpaka nursery wewe. Na wewe pia utapelekwa baby class shimo la tewa. Potea na uende zako, mimi na tujuane. Sasa enda. Wewe